pneumonia wax badan laga sheekeeyay dalkeenana dhibaatada ay ku hayso iska ma wareysanayno. Soomaaliya carruurtu waxay u dhintaan ugu badan waxaan u maleynayaa inay tahay shubanka iyo pneumonia-da labada ugu badan ee loo dhinto carruurteena ay u dhintaan. طبعا sida caadiga ah waa taqaanano alveoli-ga oo sanbabada oxygen ayaa ka buuxa bini aadamka marka pneumonia ay dhacdana qoyaan ayaa galayo oo ah bas iyo fluid ayaa galay qofkii neefta ayaa dhibayso. virus keeni karo, bacteria keeni karo, fungi keeni karo. waa laga hortagi karaa dabcan waxyaabo badan loo hortagi karaa. in carruurta la talaalo waxa meesha maanta loo joogo muhiimsan waxa waaye dadka in la wacyi geliyo aantaan oo kale in looga faa'iideysto bulshada in la wacyi geliyo aqoontooda pneumonia ay u leeyihiin la kordhiyo ayaa ugu muhiimsan. waxyaabaha looga hortagi karaa waxaa ka mid ah in ilmaha laga talaalo pneumococcal vaccine iyo Haemophilus influenza vaccine in la siiyo kaliya ma ahane jadeecada oo laga talaalo iyo maaragtay pertussis-ka iyo hubin kafta xiqdheerta oo laga talaalo lafteeda waxay yareyn kartaa ilmaha inay qaadaan pneumonia. canuga markay ku dhacdo jadeeco measles waxa uu risk u yahay pneumonia inuu qaado. markay xiqdheer ku dhacdo wuxuu risk u yahay pneumonia inuu qaado. haddii labadaas laga talaalo waxay yareyn kartaa qaadida oo maaragtay cudurrada oo ilmaha in laga talaalo inta yar yihiin lagu taliyo oo dhan oo ay qaataan talaalkooda waxay yareyn kartaa pneumonia inay ku dhacdo ay yareyn kartaa. shaqo badan maaragtay naga dhiman dalkeena soo kabasho ayuu ku jiraa institutionska dib u dhismayo wax badan inaan soo kordhino loo baahan yahay. adduunyada waxaa ka jira wax la yiraahdo ongoing surveillance system ka jiro oo wax kasta soo kordhay lala socdo. annaga maaragtay systemskaasi inaan dhisno ayaa laga maarmaan ah. shaqooyin badan aan sugayso marka dunida dhisantay iyo dunida horumartay iyo dunida caafimaadkooda u hagaagay ayagoo iska jeefama imaanayna shaqo ay ku timid annagana shaqadaas aan sugaysa aad aan u mahadsantihiin.